diiday inuu reerkii wax taro mid waa kaa kan kale waxa weeye nin intuu waddanka tegay ama hooyadiis joogaan halkan ama walaalihiis joogaan ninkii la buufinayo oo la afuufayo oo habeenii maalin wax loo sheegayo ama habarta ay leedahay waryaa caruurta waa la iska xirxiraa halkan macnaha markii dambe waagi hore waa la iska dhali jiray lacag baa loo dhali jiray laakiin markii dambe caruuraha xoogaa waa la iska kala korin jiray waa la iska xir jiray waryaa ma ilmihii ba iska xirtay hadduu Afrika tagno waxa leeyahay waryaa ma ilmihii ba iska xirtay dee maxay tahay naa kala guursaday ilmo dhasha ilmaha waxaa u malaysaa waa iska daadinayaan inay jannada lagu gelaayo ma garanaysaa ama waxaa la leeyahay وبرتي وحلقان جوجتو أكو دعينيا هلك تج بلاي بحلك تج أفريقيا ودريسا أفريقيا تجيا ولا صور عامينيا وحلا لوشيجيا ناقوسو قري للسوق محيط هاي العقدة ساس سماء نينكيو في عن بكات تجيا نينكيو وحكو إيمانا يدبرسن أو وركب بوحب marka ninkaan dhaqtarka ah waxa way Afriku tagay waa la soo dhaashay qolyaha la soo dhaamay marka labada waxyaabood ba ugu badan maxaa la dhahaa labada waxyaabood oo nimanka lagu eriyo marka gabadhan iyo wiilkan waxay ahaayeen dad maxaa la dhahaa dad markii la soo qaxay isguursaday oo wadamada isku guursaday laakiin waxay gabadhuna waxay ka timid family very rich ah oo taajiriin ah bay ka timid oo limited ah oo lacag haysta taajiriin ah ninkuna wuxuu ka yimid dadka maxaa dhahaa working class ka oo deenin gurigooda birimuskun tersal macnaha laga cuno buu iska ahaa macnaha dad nool oo cuntadooda cuno aabiisi hooyadii shaqo tagaan bay ahaayeen moogtahay marka labadaas markay isguursadeen oo labadiiba aqoon-yahano yihiin ninku dhakhtar buu ahaa gabadha waxba uma baahnaa sheegna laakiin iyaduna waxay ahayd 9 to 5 dadka shaqeeya oo shaqo fiican bay haysatay oo subaxii bay shaqo tagi jirtay caruur bay lahaayeen 4 ka badan marka ninkaas iyo naagtaas hadday isguursadeen waxay de halkan dad yimid Afrika markay ka imaanayeen dad reerahooda lacag lahaayeen nolol fiican ku soo koray bay ahaayeen de way isguursadeen caruur bay dhaleen maxaa dhahaa mid walba markii intuu waxbarashada waday halkan waxbarashada xaggay kala yimaadeen laakiin markii intii dhamaystirkii halkan mid walba midku intuu kani waday kan kale ilmu waayay kan ilmu waayay macnaha sida Europe loo nool yahay bay u noolaayeen ma garanaysaa sida halkan loo nool yahay bay u noolaayeen marka noloshaas caruurteeda ay ku soo korsadeen caruurtii markii adiga certain age caruurta ay gaareen reerku noloshooda waxay u noolaayeen sida dadka Ingiriiska u nool yihiin waxay aadi jireen Disneyland oo Mareykanka California waxay aadi jireen Paris waxay aadi jireen maxaa dhahaa Spain de Europe iyo Afrika iyo meel u dhiman male Soomaaliya ma aadi iyago aadi ma maqleen laakiin holiday iyo dalxiis meel u dhiman adduunka waa jirtaa ma dhihi karo meel bay tageen noloshaas ay ku noolaayeen ninku dhakhtar buu ahaa medical doctor buu ahaa maxaa dhahaa nolol fiican bay ku noolaayeen caruur badan bay lahaayeen dad wax bartay is soo saaciday nolosha meel fiican ay u joogto nolosha bay ahayd ninkii waa baxay Afrika u tagay Afrika markuu tagay waxa la yiri war heer dhakhtar baa tahay intaasoo lacag qaadataa maxaa dhahaa consultant baa tahay ninkaale araga baa tahay maxaa qabataa meeda lacagtaadi Nairobi guri ma ka gadatay markaasuu yiri maya guri ma leeyahay markaas ay war meesh xamar guri ma ka samaystay markaas uu yiri may guri ma leeyahay oo hadda ma kan Ingiriiska leedahay degan tahay markaas uu yiri may kan Ingiriiska aniga ma leeyahay waa guri fiican oo caruurta igu noolaato 5 bedroom buu degan yahay the classic ah ilaa dadkaas ninkaas inaas labaduba shaqo fiican qaato lacag fiican qaato weeye wuxuu yiri may guri qaali aan bedeganahay oo aniga iska bixina rentiga aniga xaskayga waa shaqaysan aniga waa shaqeeyayo caruurta waa naloo hayayo lacag baan ku bixinaayo waana loo ka soo kaxeeyaa iskuulka lacag baan ku bixinaayo child care wax la dhaho macnaha dadka shaqeeya haday aad lacagtooda u badan tahay inaga iska bixinayo hadaysan lacagtooda aad u badnayna child care ka dawladda ka bixinaysa 70% xogaa buu bixinayaa marka isaguna yar waa la fiirinayaa macnaha qofka income-kiisa la fiirshaa markaas yiri waxa soo qarshan bixina gurina ma gadan karnaa caruur baan korsanayna meesha wax ma yaalaane waa iska shaqo tagnaa waxaan shaqeynana waa cunaa ma jirtaa la yiri wariyaa doqon baata hebelo saas aha gurigaas uu dhistay hebelo saas Nairobi guriga dhistay hebelo saas ninkii waa la soo dhaashay ninkii 3 bilood iska baxay wuu isla dadkii ehelkii iyo raggii wixii dadkii wax soo sabtay iska soo sheegso ninkii saa halka dhaansan baa yimi ninkii wuu yimi wuxuu yiri gabadhay wax ku sheega xaaskiisa kula soo noqday waxa kan ay ku jirno waa wax bini aadamku ku jiro ma aha ummadii way tageen ummadii dabaqyay dhisteen ummadii guryay dhisteen adigana waa inaan meesha ka kacnaa waa inaan dalkii wax ka qabsanaa de reer 4 caruur ka badan leh oo wax bartay oo Soomaali ah oo nolol intaas oo sano ku soo jiray hal mar shutdown ma samayn karaan wixii ilmahooda ay bareen iyo waxay barteen iyo macnaha hal mar intay dam ka dhigaan saving ma aruurin karaano si aan ognahay gabadha waxay dhigi jirtay qaraabanaay يا علمي بطري جاب ومرسي بيجرته بلايو علمي بطري جاب كده سو علمها وحوي عنتفي عن معنان
marka reerkaas hal mar shut down intay iska dhigaan wixii dhan intay aruuriyaan saving ka dhigaan bahalkeen karaan dee reero khataro meel walba adduunka meel walba carruurtooda tagtay gabadhii wixii tir soo dhawow waxaan kuu sheegaa aniga noloshii aan ku jiray baan ku jiraynaa guri gadasho waa ogolahay laakiin xoogaa carruurta certain age ha gaaraan bal xoogaa ha gaaraano ha soo korkoraano teenage iyo ha noqdaano maxaa la dhahaa bal carruurta heerka ha gaaraan waxaan yaryar 5 iyo jira 6 iyo ha soo kacaan wuxuu yirnaa waxaas ma jiraan carruurtan masaakiinta intay yaryar yihiin baa wax la qabsadaa waxa weeye lacagtan iyo waxaan aan aruurino aan bahalkeeno ama guri aan gadano oo halkan ka gadano guri ama aan wadankii ka samaysan waliba wadankii buu ku adkaystay wuxuu yiri wadankii baan ka gadanaynaa afrikaan guri ka samaysanaynaa dabaq baan dhisanaynaa ama Kenya guri ka gadanaynaa in maxaa la dhahaa dabaq isa saarano afrika guryo Kenya guryo laga gado mar dhaxaas la sheegi jiray gabadha ixtiraam ma jirto nolosha ma geliyo tan ku jiray baan ku jiriyaa ma rabtaa noloshii aan ku jiray oo ay maxaa dhahaa aan soo wada qaadan ani adigu noloshaas ma rabtaa reerkaanito lagama yaabo in intay lacag save gareeyaan tahay gabarta jirado reerkooda classic ahaayeeno maxaa dhahaa rich ahaayeen oo markii horena nolol halka ka soo bilowday macnaha iyadoo yaro maxaa dhahaa gaari lagu wada garaadsatay Soomaaliya ya markii la soo qaxayna de nolol kale oo classic ah iyadii samaysatay iyadii ninkay iskuursadeen do you think inay ku noqonayso oo maxaa dhahaa ay samaynayso inay ku noqoto nolosha uu ninkan sheegay uu leeyahay waxa la aruuriyo oo dawladda guri aan ka doonano dawladda guri hana siiso oo maxaa dhahay ama ka gadano ama aan guri kala gadano wixii sidii ay u socdeen ma jirto kuma noqonayso de ma anise ila tadaweyna diidaba wixii tir anigu nolosha mid ku noqonaysa ma ihi nolosheedii aan ku jiray baan rabaa taasaan rabaa marka ilmuhuna dee reer ilmahooda loo kaxeeyo oo ilmahooda iskool maxaa la iskoolka looga soo kaxeeyo oo swimming loo geeyo oo looga soo kaxeeyo oo qof shaqaale ah iyagoo UK joogabay dad Soomaali ah qabsadeen oo ilmihii intay shaqada ku maqan yihiin looga soo kaxeeyo guriga loo keena oo miiska loo soo fariisiya oo ciyaalkooda homoogada iyo laga shaqeeyay basics oo kale yimaadaan ilaa qofka shaqaalaha meeshaan markuu 9 shaqo aado dee 5 uu ka soo baxaya 5 1 hour oo travel asi ama tareen soo raac ama baabuur ha haysto waxa way guriga wuxuu yimaadaba waa 6 o'clock qof gurigiisa 6 o'clock markuu yimi maxaa la dhahaa ama ilmahoodii iyo reerkoodii dhex fariistay oo nolol kaale arag haysto oo ma yeelayaa ilmihiina yaa lagu hayna ama adiga ilmaha ama adiga joogo part time shaqo ilaa full time bay shaqeynaysa magta gabadha wuxuu yiri adigana part time shaqo buu dhahay wax sheekada waxyaabaha ku jira wax kamid ah adiguna part time shaqo ilmaha kan leynoo geynayo oo leynoo keenayo adigu geyso ilmaha iskoolka kana keen ilmaha guriga la joog child care ka hala save gareey lacagtiisa maxaa la lacag badan hala save gareeyo si aynu wax u qabsano gabadhi waa diiday waxaan qabsanayna iyo waxa nolosha ay sheegayso waxa u babac dhigi karo iyo waxaan arkay ma aha de naag gaari kaale arago classic oo ranja wadato de waa dadka qaar baa wada ma garanay ina maxaa la dad badan baa yaqaana ya baabuur ranja wadato guri 5 bedroom degano kaala iska arago carruurteeda loo hayo subaxii carruurtii shaqo tagto oo galabtii maxaa dhahaa 5 o'clock ka soo rawaxdo oo nolol classic ku jirto hal mar nolosha aan ka dhex saaro hal mar qam down part time tag ani amalu dabcan inuu ka dhigo part time tag ilmaha dhow soo wada geyso macnaha ya ma jirtay tiri waxaas meel ay ka shaqeynayaan agteedan kama shaqeynayaan tiri de ninkii maxaa idinka warkeedii ka wareeriya ninkii reerkii wuxuu yiri haddii shaqeyneen aniga waa tegaya maca salaama anaa ku dhigay tiri de bacdi baa banaanka loo dhigay dhakhtarkii bacdiisa banaanka loo dhigay waa loo tuuray de markii xogaa uu maqnaayo damcay inuu soo noqdo waxay tiri may habeenkii darrad ayu tegay way tiri inuu soo noqdo ma soo noqonayo ninka nolosha rabay inuu noloshii carruurteedii reerkayga inuu noloshiisa baabi'iyo dhahay waxbaan safe garaynaya waxbaan yeelayayo afrikada warkii looga soo shubay ii baqlay lagama yaabay tiri inuu reerku soo noqdo de reerkii saasay ku burbureen marka maxaa dhahaa naag lala guursaday kaliya xitaa reerka ma burburis reerka waxyaabo badan ba reeraha burburiya warkaasoo kaleeto afrika looga soo sheegayo ama naag lagu darayo oo laleeyahay carruur badan dhal